askarta geela keligii taliye iyo xaaskiisa iyo hantida uu ka dhacay qaranka dawladda inay ilaaliyaan uu ku bixinayo mishaarooyin si uu u badbaadiyo xaasaskoodana u helaan caafimaad iyo mishaarooyin ku filan askariga dalka Djibouti daafacaya qaranka kuna sugan xuduudda Dumeera maxaa ka go'an inuu sameeyo waa askari yahow maxaa uu ku dhintay askarigii adig kula mid ahaa ee dalka daafacayay ee jiita kugula jiray isagoo curyaansan una curyaamay si uu dalkiisa u daafaco in lagu xabadeeyo guriga madaxtooyada horteeda isagoo waxa uu galabsaday aan jirin doonaya xuquuqdiisa uu ku lahaa qarankiisa dalka Djibouti maxaa keenay inaad hesho mishaar aan kugu filnayn in caruurtaadu caafimaadkooda ku filnayn ay helaan adi laftarkaaga caafimaadkaaga oo kugu filayn aad heshid maxaa taliskan uu yahay marka aad fiiriso maxaa ka go'an askari yahow inkastoo hadda wararka aanu helayna ay tahay in khilaaf xoog la uu hareeyay ciidamada gudahooga taasoo guuxuna uu yahay ciidanka oo haysan noloshii ciidanka uu lahaa keligii taliye Ismaaciil Cumar haba yaraatee tan iyo xukunka marka dalka uu ka cadtabtay ma jiraan ciidanku horumar ay ku gudbeen waayo ciidanka qaranka dalka Djibouti dol waliba oo weerar dalka dibadda uga yimid daafac xoog labay galeen waqtiga electric dalka soo weerartay halka waxa ku shahiiday ciidamo fara badan xagee maanta ku sugan yihiin qoysaskoodii caruurtoodii nolosha ayaa ciriiri ku ah ma jirto darajooyin iyo wax loo kordhiyay ciidanka qalabka saad arkaysaan waa ninka ciidamada waxa madaxdoodu ay yihiin qaraabo ka gadhow keligii taliye Ismaaciil Cumar si ay u badbaadiyaan maamulkiisa shacabka Djibouti ee dawladeedka ma aha kuwa in nigala horgeeyo oo la muujiyo saad u baabi'isaan waa dadkiini dalka waxay doonayaan isbedel si ay u helaan noloshii runta ahayd ay rabeen in kolkii gobonimada ay qaateen inay ku noolaadaan askari yahow dalka u dharshay daafacaya qaranka ee ka soo horjeeda wax waliba oo dulinimo goorteed wax daafacaysa waa goortee maaha inaad daafacdo hantida geelle iyo xaaskiisa waxa weeyaan askari yahow inaad dareento xuquuq waxa aad leedahay waxaad xaq u leedahay iyo waxaad xaq u lahayd maxaad qaadataa mishaarkaagu intee buu yahay maxaa keenay in aad ku noolaato ciriiri adigoo dhufays ku jira har iyo habeenna uu kugu dhamaanayo goob madow adigoo xaaskaagii aan garab jiifin caruurtaadu waxay ku nool yihiin walwal waxbarasho ma haystaan caafimaadna ma haystaan biyana ma arkaan waxay ku nool yihiin goobo kulul oo koraankii korantaduna ay tahay mid ciriiriya maxaa keenay dulinimada inuu ku noolaado xaaskaagu iyo ciiskaagu qaarna ay ku raaxaystaan dakhligii dalka iyo maaliyadii ay ku tarkifalaan ay ku tuntaan shacabka iyo noloshii wadanka Ismaaciil Cumar Geelle waa nin madax adag oo dictator waa nin ka soo jeeda dalka Ethiopia kuna dhashay dalka Ethiopia laakiin ku barbaaray Djibouti inta uu imiday lixnimiyadii markii uu ka imanay dalka Ethiopia isagoo nin dhalinyaro ah waxa lagu xiray deegaanka Aysha koob iyo 60 isaga qaar fara badan oo dhalinyaro ah waqtigaas oo boqorkii ka talin jiray dalka Ethiopia Haile Selassie uu ku dhawaaqay in dhalintu ay ka bixi kareen dalka waqtigaas oo ardayda aad loo leyn jiray dalka Ethiopia deegaanka Aysha ayaa uu ku xirnaa waxa aad mas'uuliyadooda u qaaday oday dhaqameedkii deegaanka Aysha joogay oo samata bixiyay in dil loo geysto kadibna la soo lugaysiyay sidaas lagu keenay Djibouti waxa uu noqday askari ka tirsan ciidanka bilayska saaxadda ciidanka kuma lahayn samicad saaxadda xoriyadoonkana samicad kuma lahayn waxa uu halkan iyo darajada ku soo gaaray waxa uu dhoodhoobay adeerkiis oo wadanka xukumi jiray allaha u naxariiste waxaad ku tusaale qaadataa askariga ilaaliga jamhuuriga sida uu yahay labiskiisu waxa lacag iyo dakhli u qaato sida caruurtiisa iskoolada gawaarida lagu geeyo maxay tahay arintaasi askariga fadhiya Dumeerana xaaskiisa iyo noloshiisu noqoto mid dambaska ah wadanku waxa uu noqday wadan afar qof u talisa oo darisa oo qaraaba ciidankuna waa inay noqdaan kuwa gali kara wax waliba daafici kara war u fiirsana wadanada carabta ciidamadu waxay muujiyeen inay diidaan dulliga iyo maamulka cadaadiskiisa waxay ka hortageen dulliga waxay daaficeen shacabkooda waxay meesha ka ceyrsadeen hogaamiyaashii kale taliyaashii bal adigu yaa daafici kartaa shacabkaaga daafac maaha in shacabkaaga lagu iraaho burburi ciidamada booliiska ee dalka Colonel Abdullaahi Cabdi oo haysto waa nin Abdullaahi Cabdi aan ahayn ciidanka saaxad ku lahayn waqtigii ciidanka uu ku jiray balse waxa uu daba dhilif u yahay keligii taliye Ismaaciil Cumar Geelle
cabdilaahi cabdi wuxuu ahaa nin isagu baadha ganacsatada Carbeed ee dalka ka ganacsanaysa kana qaala dhaqaalooyin oo ka dhisay xirooyinka ciidamada dakhliga ciidamaduna waxa ay yihiin kuwa jeebka lagu shubto cabdilaahi cabdi dhawaan waxa uu gudbiyay lacag aad u fara badan soo u diray walaashii Khadiijo oo ku nool dalka Canada waxa ay iibsatay guri magaalada Ottawa lacagtaana waxa bixiyay Colonel Cabdilaahi Cabdi waxa weeye waa dhaqaalihii dalka iyo ciidanka lagu maareyn lahaa askariga bilayskuna ma haysto caafimaad iyo nolol ku filan waxa weeyaan askartu inay muujiyaan daraan ay ku daafacayaan dadkooda iyo shacabkooda wadankoodana ay ku samata bixiyaan maaha askarigu in laga horgeeyo qofka waalidkiisa walaalkiisa iyo xaaskiisa ku nool caasimada gudihiisa cid wax loo tareeyo ma jirto hore loo dilay walaalkii loo xiriyo adiguna soo xiiro amba soo qoyso ayay maama Soomaaliyeed ahayd walaalka ayaa la xabadeeyo askari kula ahaa walaalka ayaa laga ceersaday ciidanka bishaarooyinkiisina la iska qaataa adigana miiskay ku taala waxa falayana waa qaraabada isku dhow ee maamulka wadanka soorantay bal daafaca dalka iyo qaranka iyo si kaliya taliya Ismaaciil Cumar looga ceersan lahaa meesha gacantiina ayay ku jirtaa ciidanku waa inay sameeyaan daafac la xiriira inay ka buriyaan meesha maamulka isku tiirsan ee wadanka xukuumaya hooyadina raadsada caafimaadkiina raadsada ubadkiina iyo dalkiina samata bixiya askariyow aw askarigi adig kula mid ah ee dibadda soo aaday waxa uu iska dhiibay qaybo kala duwan oo qaarada Yurub si uu noloshaasi dhaanto u helo maxaa keenay askarigu inuu dhibaatoodo isagoo qarankiisa daafacaya oo fiirso kaligi taliyaashii soo maray caalamka ciidanku awood ay saareen si nolol ka duwan u helaan adigu waxa tahay askari qaranka daafacaya inaad ogolaato ma aha kaligi taliya Ismaaciil Cumar iyo maamulka qaraabadiisa uu inuu dhibay oo iyagu ah kuwa aan inii wadin meel runta iyo xaqeedu ay taalo dalkiina iyo dadkiina ba inka daafici kara حقنا إنك أحسن كرا قعنتنا واحد كجرتا قعنتنا كلي تلي إسماعيل عمر هذه فربنا لوجو قبته وحال هلي كرا وضنك إنه قالوا نستحق كدوان نستحق هذا ما ملك هذا كتيرا إذا يهو الله ينحفظه وإن النقطان قوة صوت كذا ودلني بدأ الديرية خلاف هذا قوله نجرنا ومن نقول كرا إنه بنيو كلي تلي إسماعيل عمر ماش عسكري قدالك جبوتي ما هيستعافيمات كفلان يمشاروين كفلان waxa nasiib daraa in askariga ilaalinaya nafta geela kaligi taliye iyo xaaskiisa iyo hantida uu ka dhacay qaranka dawladda inay ilaaliyaan uu ku bixinayo mishaarooyin si uu u badbaadiyo xaasaskoodana u helaan caafimaad iyo mishaarooyin ku filan askariga dalka Djibouti daafacaya qaranka kuna sugan xuduudda Dumeera maxaa ka go'an inuu sameeyo war askariyaho maxaa uu ku dhintay askarigii adig kula mid ahaa ee dalka daafacayay ee jiita kugula jiray isoo curyaansan una curyaamay si uu dalkiisa u daafaco in lagu xabadeeyo guriga madaxtooyada horteeda isoo waxa uu galabsaday aan jirin doonaya xuquuqdiisa uu ku lahaa qarankiisa dalka Djibouti maxaa keenay inaad hesho mishaar aan kugu filnayn in caruurtaadu caafimaadkooda ku filnayn ay helaan adi laftarkaaga caafimaadkaaga oo kugu filayn aad heshid maxaa taliskan uu yahay marka aad fiiriso maxaa ka go'an askariyahow inkastoo hadda wararka aanu helayna ay tahay in khilaaf xoog la uu hareeyay ciidamada gudahooga taasoo guuxuna uu yahay ciidanka oo haysan noloshii ciidanka uu lahaa kaligi taliya Ismaaciil Cumar haba yaraatee tan iyo xukunka marka dalka uu ka cabtabtay ma jiraan ciidanku horumar ay ku gudbeen waayo ciidanka qaranka dalka Djibouti dol waliba oo weerar dalka dibadda uga yimid daafac xoog labay galeen waqtiga electric dalka soo weerartay halka waxa ku shahiiday ciidamo fara badan xagee maanta ku sugan yihiin qoysaskoodii caruurtoodii nolosha ayaa ciriiri ku ah ma jirto darajooyin iyo wax loo kordhiyay ciidanka qalabka saad arkaysaan waa ninka ciidamada waxa madaxdoodu ay yihiin qaraabo ka gadhow kaligi taliya Ismaaciil Cumar si u badbaadiyaan maamulkiisa shacabka Djibouti ee dawladeedka ma aha kuwa in nigala horgeeyo oo la muujiyo saad u baabiisaan waa dadkiini dalka waxay doonayaan isbedel si ay u helaan noloshii runta ahayd ay rabeen in kolkii gobonimada ay qaateen inay ku noolaadaan askariyahow dalka u dhalshay daafacaya qaranka ee ka soo horjeeda wax waliba oo dulinimo goorteed wax daafacaysa waa goortee maaha inaad daafacdo hantida geelle iyo xaaskiisa waxa weeyaan askariyahow inaad dareento xuquuq waxa aad leedahay waxaad xaq u leedahay iyo waxaad xaq u lahayd maxaad qaadataa mishaarkaagu intee buu yahay maxaa keenay in aad ku noolaato ciriiri adigoo dhufays ku jira hariya habeenna uu kugu dhamaanayo goob madow adigoo xaaskaagii aan garab jiifin
caruurtaadu waxay ku nool yihiin walwal waxbarasho ma haystaan caafimaadna ma haystaan biyana ma arkaan waxay ku nool yihiin goobo kulul oo koraankii korantaduna ay tahay mid cidhiidhiya maxaa keenay dulinimada inuu ku noolaado xaaskaagu iyo ciyowskaagu qaarna ay ku raaxaystaan dakhligii dalka iyo maaliyadii ay ku tarkifalaan ay ku tuntaan shacabka iyo noloshii wadanka Ismaaciil Cumar Geelle waa nin madax adag oo dictator waa nin ka soo jeeda dalka Ethiopia kuna dhashay dalka Ethiopia laakiin ku barbaaray Djibouti inta uu imiday lixnimadii markii uu ka imanay dalka Ethiopia isagoo nin dhalinyaro ah waxa lagu xiray deegaanka ay shacab koob iyo 60 isaga qaar fara badan oo dhalinyaro ah waqtigaas oo boqorkii ka talin jiray dalka Ethiopia Haile Selassie uu ku dhawaaqay in dhalintu ay ka bixi kareen dalka waqtigaas oo ardayda aad loo leyn jiray dalka Ethiopia deegaanka ay shacab ayaa uu ku xirnaa waxa aad mas'uuliyadooda u qaaday oday dhaqameedkii deegaanka ay shacab joogay oo samata bixiyay oo kana samata bixiyay in dil loo geysto kadibna la soo lugeysiyay sidaas lagu keenay Djibouti waxa uu noqday askari ka tirsan ciidanka bilayska saaxadda ciidanka kuma lahayn samicad saaxadda xoriyadoonkana samicad kuma lahayn waxa uu halkan iyo darajada ku soo gaaray waxa uu dhoodhoobay adeerkiis oo wadanka xukumi jiray allaha u naxariiste waxaad ku tusaale qaadataa askariga ilaaliga jamhuuriga sida uu yahay labiskiisu waxa lacag iyo dakhli u qaato sida caruurtiisa iskoolada gawaarida lagu geeyo maxay tahay arintaasi askariga fadhiya dumeerana xaaskiisa iyo noloshiisu noqoto mid dambaska ah wadanku waxa uu noqday wadan afar qof u talisa oo darisa oo qaraaba ciidankuna waa inay noqdaan kuwa gali kara wax waliba daafici kara war u fiirsana wadanada carabta ciidamadu waxay muujiyeen inay diidaan dulliga iyo maamulka cadaadiskiisa waxay ka hortageen dulliga waxay daaficeen shacabkooda waxay meesha ka ceyrsadeen hogaamiyaashii kale taliyaashii bal adigu yaa daafici kartaa shacabkaaga daafac maaha in shacabkaaga lagu iraaho burburi ciidamada booliiska ee dalka Colonel Abdullaahi Cabdi oo haysto waa nin Abdullaahi Cabdi aan ahayn ciidanka saaxad ku lahayn waqtigii ciidanka uu ku jiray balse waxa uu daba dhilif u yahay kaligii taliya Ismaaciil Cumar Geelle Abdullaahi Cabdi wuxuu ahaa nin isagu baadha ganacsatada Carabeed ee dalka ka ganacsanaysa kana qaala dhaqaalooyin oo ka dhisay xirooyinka ciidamada dakhliga ciidamaduna waxa ay yihiin kuwa jaabka lagu shubto Abdullaahi Cabdi dhawaan waxa uu gudbiyay lacag aad u fara badan soo u diray walaashii Khadiijo oo ku nool dalka Canada waxa ay iibsatay guri magaalada Ottawa lacagtaana waxa bixiyay Colonel Abdullaahi Cabdi waxa weeye waa dhaqaalihii dalka iyo ciidanka lagu maareyn lahaa askariga bilayskuna ma haysto caafimaad iyo nolol ku filan waxa weeyaan askartu inay muujiyaan daraan ay ku daafacayaan dadkooda iyo shacabkooda wadankoodana ay ku samata bixiyaan maaha askarigu in laga horgeeyo qofka waalidkiisa walaalkiisa iyo xaaskiisa ku nool caasimada gudihiisa cid wax loo tareeyo ma jirto hore loo dilay walaalkii loo xiriyo adiguna soo xiro amba soo qoyso ayay maama Soomaaliyeed ahayd walaalka ayaa la xabadeeyo askari kula ahaa walaalka ayaa laga ceersaday ciidanka bishaarooyinkiisina la iska qaataa adigana miiskay ku taala waxa falayana waa qaraabada isku dhow ee maamulka wadanka soorantay bal daafaca dalka iyo qaranka iyo si kaliya taliya Ismaaciil Cumar looga ceersan lahaa meesha gacantiina ayay ku jirtaa ciidanku waa inay sameeyaan daafac la xiriira inay ka buriyaan meesha maamulka isku tiirsan ee wadanka xukumaya hooyadina raadsada caafimaadkiina raadsada ubadkiina iyo dalkiina samata bixiya askariyow aw askarigi adig kula mid ah ee dibadda soo aaday waxa uu iska dhiibay qaybo kala duwan oo qaarada Yurub si uu noloshaasi dhaanto u helo maxaa keenay askarigu inuu dhibaatoodo isagoo qarankiisa daafacaya oo fiirso kaligii taliyaashii soo maray caalamka ciidanku awood ay saareen si nolol ka duwan u helaan adigu waxa tahay askari qaranka daafacaya inaad ogolaato ma aha kaligii taliya Ismaaciil Cumar iyo maamulka qaraabadiisa weynii u dhibay oo iyagu ah kuwa aan inii wadin meel runta iyo xaqeedu ay taalo dalkiina iyo dadkiina ba inka daafici kara حقنا إنك أحسن كرا جعانتنا واحد كجرتا جعانتنا كلي تلي إسماعيل عمر هذه فربنا لو قبته وحال هلي كرا وضنك إنه قالوا نستحق كدوان نستحق هذا ما ملك هذا كجرا أيضا يهو الله ينحفظه وين النقطان كوا سوى كذا ودلني بدأ ديريا خلاف هذا قوله نجرنا ومن نقول كرا إنه بنيو كلي تلي إسماعيل عمر ماش iskariin ma dhaaftee goormay dhaqaysaa dukaan bay ka dhigato dhaqankeeda weeyaan dhulka waxa yimaadaba
qaybtayda soo dhigay tiraan goormay dhegaysta
buuxsamin dhiilkii ma buuxsamin iskariin ma dhaaftee goormay dhaqaysaa dukaan bay ka dhigato dhaqankeeda weeyaan dhulka waxa yimaadana qaybtayda soo dhigay tiraan goormay dhaqaysaa